السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خير بيد رجينيا ولكن ويفاه شاكل ما توحى بيد لو ذاقو قصة آد وين وولي برنا إن وولي بقى إنه واحد بدنا كبرنا واحد بدنا كفرنا قصة الواحد أبغى صعبصات على الرجال الصومالي ولي بقى يعني لا وين الرجال الصومالي سكري سيجير أو ده كم قربها تشوكا إن واحد كذا نباص ربنا سوق كومن لوش يسوي كومن marka waxaan ka haystaa oqolasho waxaan ka haystaa family-giisa maxamed ilka casey wuxuu ka mid ahaa dadkii wadankii joogay hargeysa in badan buu hargeysa joogay ku barbaaray hargeysa saxdii buu ahaa dhaladkii markii dambe wuu soo tahriibay adigu Ethiopia Sudan Libya waqti sanado badan Talyaaniga muddo badan aakhirka wuxuu soo galay Jarmalka wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay Jarmalka soo galay Soomaalidu markii uu Jarmalka yimid waxa la sheegay 2013 14 sanadada ugu horreeyay ka mid ahaa raggii soo galay halkii buu iskala haystay ma sha Allah si fiican ugu noolaa arule aabo si wacan loo soo socotay marka berigii dhaweeytay Mareykanku way ka dhacay doorashada xilliga hore uu haystay madaxweyne Obama oo ku Soomaalida ay tageen wadanka Mareykanka kadib markii dambe Trump wakiil Soomaalida uu joojinay gudaha gabi ahaanba haddana imika waa ka qabsaday Joe Biden marka waxaa jirta Soomaali badan baa jirta oo Afrikada joogtay iyo qaar Yurub joogay oo rabayna wadanka Mareykanka tagaan maadaama wadan weyn oo si weyn looga shaqeysto marka maxamed ilka casey wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada Soomaalida faraha badan ee ka baxday wadanka Jarmalka ee aadii wadanka la yiraahdo Mareykanka marka Mareykanka si wada sunnaytaa wada naqaana qaarba wadanka meel bay ka bilaabaan wuxuu ka bilaabay Brazil buu joogay muddo iyaga group fara badan Colombia wala lugeynay waqti badan baa geliya marka maxamed ilka casey waxa ku soo baxday waxa la xiiqda ama neefta dadka qaar u yaqaan asma qofka markuu naqsku yara qabto la lugeeyo tiibaa ku soo booday marka niman badan jira saaxiibada Sacuudiga marka wuxuu ka codsaday inaan laga tagino ila xanuunkiisa la tacaalo waxa ku soo booday la tacaalo maadaama buuro iyo dhul badan la marayo tahriibna waa tahriib raaxa ma jirto si kastaba ha noqoto marka xanuunka ku soo booday cusub waxaan u saday marka dadkii saaxiibada ku dhideeyay laga tagina la garab qabto dadka markay safar yihiin go'aamo dadku qaataan oo kala duwan marka safar leeyahay qaarba qofo meel bay ka tagaan qaar way la joogaan qofkii qaar way ka tagaan qof qaar gacanta way gacan qabtaan marka qurbaha la joogo dadka Soomaalida waa isku mid weey waa isku hal group waa isku hal family weey aakhirkii nimankii saaxiibada ahaa mid ka mid ah ku haray oo ku dhintay ka tigmay xoogeen oo ku garab qabtay weey oo dee isku Jarmal la ahaayeen aakhirkii ninkii xiyada saaqbatay waxa la geeyay waxa loo isku dhiibay askarta Colombia marka dhakhtar baa markii la geeyay waa la baaray nafta way ka baxday ilaaha u naxariistay maanta la asigalkii dambe galkii dambe wadanka Colombia family-giisa waa wada tacsiday marka fariintidu wax kala maaha qof shaqada inuu ka soo qaad kara fariintidu waxa weeyaan niyo horta inuu wax la guuraabayna dhammaanteena hadii joogno adduunka joogno qof kasta baa meel kasta u jecel yahay wadanka ka soo baxay u jecel yahay haddana aakhirka waxaan wadajeena qof kasta wadanka lagu aaso lagu duubo wadanka bujeero hebla magaaladii tuuladii qof kasta meesha kasoo jeedo hal lagu aaso aakhirka laakiin muhiimadu waa weyn haddana haysto wadan wanaagsan ka shaqaysanaysid ha noqoto wadanka ama wadanka loo yiro inta rinta ka badneed halkaas iska caraf halkaas iska joog iska iimaanso safar iyo qaar kale iyo waxaas ma shaqaynayso inagu ba cimrigeenu ba soconayo wax weeyaan noloshu iska sii jiraysa shaqada way sii jiraysa noloshna Ilaahay baa maamulo